xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay dhacdo maalinkii shalay ka dhacday galbeedka caasimadda Hargeysa. dhacdadaas oo ka bilaabatay dhul ay isku haystaan qoyska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dad shacab ahi, halkaas oo ay ku dhaawacmeen laba qof. Maxamed Faarax Cabdi xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani oo saxaafadda kula hadlayay xarunta xisbigaasi ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda iyo ciidamada booliska ay ceeb ku tahay in dad shacab lagu weeraro rasaas. runtii halka waxa ka dhacay dhibaato aad iyo aad u weyn oo fool xun. labada qof ee dhaawaca ma helin daryeelkii caafimaad, waxay ahaayeen dad maxaabiis ku dhaxaa iyagoo dulmana ahaa marka hore oo guryahoodii lagu soo dhaawacay. haddana dhakhtarkii Hargeysa maxaabiis ku ahaa oo ciidan ku dul ilaalinayay. waa falfool xun oo meesha ka dhacay weeyaan. runtii waxaanu la kulannay qaraabada iyo ehelada dadka la dhaawacay, gaar ahaan xaaska uu qabo ninka la yiraahdo Girgira ee dhaawacan. waraysi aan la yeelanay waxa ay nooga warantay in lagu waabaristay 6 subaxnimo ee maalintii Jimcaha. maalin khayr laba ahayd, waa maalintii dadku cibaadaysanayeen. boolisku waxay si argagax la u galeen shacabka xaafadahooda deganaa ee nabadqabka ku waabaristay. waxay noo sheegtay in rasaas la dhacay, ninkeedii la dhaawacay, caruurteediina la xidhay. waxaa xidhan 17 qof oo ka tirsan dadkii xaafadaas. ceeb iyo foolxumo weyn bay tahay in inta dadna la dhaaco dadna la soo xidho shacabka degan xaafadaasi. waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay dadka xidhan u soo celiso xorriyadoodii, dibna ay u sii deyso. ciidanka bilayska waxa ay geysteen fal weyn oo fool xun. tacaddi weynna meesha ka dhacay. bilaysku ma aha inuu noqdo gacmaha dulmiga, in loo adeegsado gacmaha dulmiga ma aha bilaysku inuu noqdo. waxaan xisbi ahaan dalbanaynaa baadhis weyn in lagu sameeyo ciidanka booliska. waxa foolxumo ah cashuurtii ay shacabkaasi bixinayeen ee ay dawladda siinayeen in rasaastii laga soo iibiyo cashuurtoodii in yagii dib loola dhaco iyadoo loogu talagalay in cadowga lagula dagaalamo. ceeb iyo cambaareen baan runtii halkaa u haynaa. waxa foolxumo ah ciidanka weeraray xaafaddu waxa weeyaan ciidanka RRU-da. ciidanka waxa loogu talagalay argagixisada. shacabkii Soomaaliland ee ahayd in iyagu difaacaan, rasaastii lacagtii laga qaaday laga soo siiyay in ayaga dib loogu weeraro ceeb bay ku tahay. taliyaha ciidanka bilayska waxa aan isqabanin inuu markuu saldhigyada iyo xarumaha ciidamada joogana uu yiraahdo diinta iyo alla ka cabsiga hal la barto, oo yiraahdo macallimiin diinta bartay saad bartaan keenaya. haddana markuu banaanka yimaadana falalka noocaas ah uu ka sameeyaa taliya isba qabanaysa leenahay. aad baanay ceebtaasi ku dul hooganaysaa. waxayna ka dhigan tahay waxa hore Soomaalidu tiraahdaa waxa la yiraahdaa militarigu indhoodu waxay arkaan cadowga. ninkan laga dhigay taliya bilis oo nin militariya waxa leenahay ku eegin shacabka, waxaad ku eegtaa cadowga dibadda indhahaaga. waxa aan dalbanaynaa baarlamaanka, guddoonka baarlamaanka iyo guddo-hoosaadka amnigu in ay u yeedhaan taliyaha ciidanka bilayska, weydiiyaan waxa halkaa ka dhacay. Guuled Maxamed Aadan Guuled Cunaabi, Telefishinka Saab, Hargeysa.